dawadayaal halka waxa ay taagan shirweynaha sideedaad ee xisbiga talada dalka haya kulmiye golihiisa dhexe murashaxa jagada madaxweyne ku-xigeen ee maanta u codeeyeen maxamuud xasan saajin sacad mudane murashax ku soo dhawahoon cable TV maxaad leedahay golihii dhexe maanta ku doortay inaad noqoto murashax madaxweyne ku-xigeen maanta way bisha 12 tahay bishii sideedaad shirkii sideedaad ee golaha kulmiye wuxuu ka dhacay Burco si sharaf leh oo aad la isku moogtahay tahniyadeeyay waxa la wax cawaaqib aan lahayn yaa ka dhacay anigu gaar ahaan waxaan ahaan murashax madaxweyne ku-xigeen dadkii meesha joogay sida sharafta leh iyo kalsoonida leh ee ay noo doorteen anigiyo madaxweynaha aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaanan ballan qaadaynaa anigu aan gaar ahaan ballan qaadayaa in waxa la wixii awoodayda xisbi ha noqoto xukuumad ha noqoto horumar dal ha noqoto inaan waxba hakrin aad iyo aad baan ugu ballan qaadayaa waxaan gaar ahaan ugu mahadnaqayaa ragga leejigayga soo socday moogtahay boorama ilaa boqolkiiba siyaadada iyagana aad baan ugu mahadnaqayaa guud ahaan xisbiga ku dhan waan mahadnaqayaa aad iyo aad baan mahadsantahay